السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيق وعبد الله عبد الكريم خليف وحنا هاي قراء فنيجان كصبيري إلا بكون إلا بيتبنكي وحن قريبو جان أدو تشيدان أو اللي يرهده حل أهل نفط هذا بوجان وحن وترجلي أو وقري دمان دلنيرة الصوماليات si ay uga faa'iideystaan buugan wuxuu ku barayaa qaabkii iyo habkii aad u guuleysan lahayd ayuu ku barayaa waxa uu buugan fariinta uu wado ay tahay fadlan ha ka quusanin noloshu ma ahan mid laga quusto maxaa yeelay dadka nolosha ka quusta waa dadka guuldareysta ma waxaad rabtaa in aad ku noolaatid nolol aad u dhib badan qofka raba inuu ku noolaado nolol dhib badan nolosha ha ka quusto qofka aan rabin inuu ku noolaado nolol dhib badanna nolosha yuusan ka quusanin mar walba isku day oo isxaawil oo ku celceli ugu dambeyn guusha waad gaaraysaa hadaf kasta oo aad ku guuldareysato marnaba ha ka caajisin inaad ku guuleysato waa fariinta uu buugani ku wado wuxuu ku barayaa qaabkii aad u sabri lahayd oo sabarkaagu waa salaanka aad u maraysid in aad guuleysatid waxaan ka codsanayaa dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan ka codsanayaa in ay naftooda iyo tan bulshadoodaba ay horumariyaan una kacaan sidii ay wadankan dhibaataysan oo burbursan ay dhibta uga saari lahaayeen fariintan ayuu buugaas idin wadaa haddii aad u maleynaysid in aad adigu haatan aad isaga nooshahay ilaahay ku abuuray khiyaali iyo dheeldheel iyo ilaahay taa kuma abuurin ilaahay wuxuu ka dhaliyay Soomaali ilaahay wuxuu ka dhaliyay dadkaas ayaa ku sugaya mustaqbal iyo jiil dambe ayaa ku sugaya fadlan waxaan ka codsanayaa qof walba ay warbixinteedu gaarto in uu fadhiga ka kaco in uu baraarugo in uu naftiisa maanta meesha nafta aad digtid baatan wadankaagana uu aad dhigaysaa maanta hadaad adigu maanta isdayacdid oo aad waqtigaaga lahwi iyo ciyaar ku lumisid wadankeenu ciyaar iyo lahwi buu ku dambeynaya haddii aad maanta aqoontaada iyo waxbarashadaada iyo naftaada aad distid birika maalin jiil fiican baad soo saaraysaan oo dalka iyo dadkaba u guuleeya Soomaalina dhibta ka saara dhammaan dhalinyarada waxbarashada oo dhan saasan ku dhiirigelinay inay wax bartaan in ay naftooda horumariyaan inay xirfado bartaan inay shaqaystaan inay guul gaaraan baan dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed aan kula dardaarmayaa fariin kale oo yar baan waxaan soo jeedinayaa dhammaan cidda wax qorto oo dhan fannigan qoraalku kharash baa kaaga baxaya buug baad soo saaraysaa dhaqaale waxa laga yaabaa inuusan kaaga soo laaban markay muhiimadaadu haysan noqon inaad dhaqaale kaaga soo laabto yeesan noqon waayo ana og inuusan dhaqaale kaaga soo laabanay laakiin maxaa la idinka rabaa cilmigaad qoraysaan in dhammaan dadkeenu iyo dalkeenu uu ka faa'iideysto si dalkeenu u noqdo dal xadaarad badan dal ilbaxnimo badan dal dadka adduun weynaha ku nool la tartama dhammaan ummadda Soomaaliyeed boqolkiiba 75 waxba ma akhristaan ama waa dalalka adduunka ugu hooseeya dhinaca wax akhriska dadkii bedeli lahaa oo akhriska jeclaysiin lahaa oo wargeysi samayn lahaa oo buugaag soo saari lahaa oo tababar qaban lahaa waa idinka ilaahay ha u naxariistay buugan waxa igu dhiirigeliyay ma jiro qof toos aan inta uu kulanay igu dhiirigeliyay inaan buuqro laakiin buugan waxa igu dhiirigeliyay oo aan buugaagtiisa akhristay ilaahay ha u naxariistay aw jaamac Umar Ciise sanadkii 2011 ilaahay ha u naxariisto buugii la oran jiray taariikhdii daraawiishta uu qoray iyo baan akhristay buugaas goortii aan akhristay bay igu dhalatay in aan buuq qoro waa dareenkii koowaad ee igu dhaliyay inaan buuqro sanadkii 2011 buugayga igu horeeyay waxa uu ahaa xikmadii Soomaalida waxaan soo bilaabay sanadkii 2012 waxaana soo saaray waxaan ku soo saaray wasaaradda waxbarashada Puntland sanadkii 2014 buugaasna wuxuu ka warramayay xikmadii Soomaalida 6 cutub buu ka warramayay xikmadii taariikhdii Soomaalida ee xikmadii ka dambeysay gabayadii Soomaaliya ee xikmadii ka dambeysay iyo madaxweynayaashii dalkeena soo maray iyo taariikhdooda iyo waxyaabihii ay asiibeen oo xikmad lahaa dhalinyarada waxaan ku dhiirigelinayaa inay buugan xal u hel naftaada ay akhristaan maxaa yeelay buugan cilmi baaris muddo 2 sano socotay weeye waxa uu buugan gorfaynaya oo taabanaya qofku sida uu marka hore u dhalin lahaa dareen guuleed si aad marka hore u yeelan lahayd qodobka xiga sidii aad dareenka guusha ah ee riyada ah aad ugu bedeli lahayd hadafkiina aad ugu bedeli lahayd u qorshayn lahayd qorshihiina aad ugu bedeli lahayd ficilkiina aad ugu bedeli lahayd isjoogtayn
oo wixii hadaad ka caajistid oo mar inta ku guul daraysatid aad ka laabatid waad guul daraysanaysaa laakiin guusha lagu sheegayo waa wixii oo aad ku celcelisay markay noloshani ma aqbasho dadka caajislowyaasha ah fadlan haddii aad caajis badan tahay waa cudur ka mid ah cudurrada dila guusha waa cudur ka mid ah cudurrada dila guusha fadlan iska ilaali cudurkan caajiska ah inuu naftaada haleelo ganacsiga dadka ganacsanaya ma ahan in ay niyad jabaan dadka wax baranaya haddii uu ku guul darayso waxbarashada ma ahan isku ku celi mar kale markay waxaan dhiirigelinayaa dhammaan dhalinyarta Soomaaliyeed meel walba ay joogaan dalkan idinka leh mustaqbalkiisuna waa idinka fadlan haniyad jabina guuleysta waxbarta shaqaysta fikrad la imaada hana ka niyad jabina nolosha innahu man la ya'asu min rawhi illahi illa alqawmul kafirun wa alayhi waxa nolosha ka guul daraysta oo ka quusta dadka gaaloobay markay idinkuna dad muslimiin ah tihiin sifadaas ma ahan sifo muslimiinta lagu yaqaan muslimiintuna ma quustaan وبالصبر بلغنا النجاح أو النصر بالله عمر بن الخطاب صبر يقول يدقح أيقو قاعدة هاي ساعة علوشة كحرتان يدبات بدن أي سوى مران أياك لفتي يعني عالمك أي قبصدان مسلمين مركا وش وحي كترتا قوس شلعان يصبر كل بدي قرياش وحن كل رجالنا يا وح أقرأ سيدي دكي نوع أبدلي لهيدين وح أقرأ سيدي نفتينا أخرى مالكينا أخرى سيدي علمي بارس السماية أو ما أهن أو كلية إنا دقن كي وحاس عاد وحكا قرطان فضلا واحد وحكا قريسان بان شعلها إنا نكون دي رجليو إن دتك دي رجليسان لمبر كلاباد إن عاد بوجاكت علمية ذا لأسوتر جنتان أو عاد برشة أو بندقتان أو عاد سوما لقدرني وين لونتي مركي سير لقدرنا أن أقرين كرنا شهودي سومالي قمانتي علمي بدن كما قرنا بوقت سومالي دا إنجليزي عربي كود قرينهن فضلا أن لا ترتمنا اللغة ده دونك وأن ترتشونا بوقت علمي جاء بوقت ساينس جاء بوقت التاريخ ده وحاسو دان إن ترتشونا وأن أنا قلنا وحلا ما إنه أي اللغة بهاي هاي وحن مركو وادي مرة بعد هاد علينا يا بهذا هالمال ميديا أو كليب كان يقصوا قبتي aad been u mahadsan yihiin waxaan kale oo aan halkaan aan mahad balaaran uga jeedinayaa dhammaan dadkii iyo bulshadii igala soo qayb qaadatay meel walba ay joogaan soo saaritaanka buugaan waxaan leeyahay guuleysta ilaahay ajar iyo xasanaad ha ka siiyo ilaahayna ha ugu guuleeyo ayaan leeyahay